xafladan oo lagu weyneynayay laguna maamuusayay 22 sano kadib markii la aasaasay dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Xafladan waxaa soo abaabulay jaaliyadda Puntland ee wadanka Turkiga waxaana ka soo qayb galay ardada, ganacsatada iyo dhammaan shacabka ku nool magaalada Istanbul. Xafladda oo si aad ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee dalka Turkiga Nuur Cabdi Xuseen iyo wasiiru dowlihii hore ee Puntland ahaana afhayeenkii hore ee Puntland Cabdulaahi Quraan Jecel. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan idin salaamay dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha sharafta badan ugu horeeyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Sheekh Maxamed, wasiiru dowlihii hore madaxtooyada Puntland Mudane Quraan Jecel, dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta badan aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan mar labaad iyo mar saacad ku soo dhaweynayaa xafladda quruxda badan. waqti badan ma haysan in badan aan sii hadlo ma rabin. waxaan idin rajeynayaa guul iyo gobonimo. hambal iyo wadda reer Puntland, hambal iyo wadda Soomaaliyeed. aad baa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hambal iyo 22 sano kadib waxaan salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Mudane Sheekh Maxamed iyo dhalintii reer Puntland oo aan kala harnahay ee ka soo shaqeeyay caawa 22 sano kadib inaan isugu nimaano halkan annagoo Ilaahay ku shukrinayna markaa dabaaldegay. anagoo ku hadal qabsanaya Sheekh Maxamed saaxiibkay Sheekh Maxamed 1998 markii la aasaasay Puntland hal jaamacad ma lahayn. haddeertaana waxaa ku yaala 13 jaamacad. dhalinyarada halkan fadhiya ee u yimid Turki ama Istanbul ay wax bartaan jaamacadahaasay ka soo baxeen. waxqabadka Puntland ama faa'iidadeeda maxaan ku qiimaynaa marka la yidhaahdo inteena waxay ku filan intaan fadhida waxbarasho u timid Puntland ka yimaadeen dowladda Soomaaliyeed jaamacadda intaas waxa weeye waa xasuusin. waxaan kaloo rabaa hambalyada guud annagoo inteena isku hambalyeynayna haddana inaan xasuusnaano 22 sano waxaad tihiin dhalinyaradii ku dhashay aasaaskii Puntland. 22 jiro ilaa iyo waxaad tihiin 27 jir intiina meesha fadhiya. midkiina wuxuu jiray 7 sano midna waa ku dhashay Puntland. waxaa laga yaabaa isku Soomaaliyeed kala wacay. waxaa laga rabaa hal abuurkii, tacabkii, dadaalkii waalidkeena soo geeyeen ee ku keeneen halkan inuu dhaqmo. sidoo kale xafladda waxaa ka hadlay agaasimaha telefishinka dowlad goboleedka Puntland ee dalka Turkiga Maxamed Cabdisalaan Boqorka iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Xaaji Maxamed سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحنا همبليو سنة دولة تسوي في أساس دولة Puntland كل أغسطس. أنا أقول هذا أنا سمعت في دولة Puntland وكيل تركيا أو سودان هذا شغل الطلبة والدولة في دولة Puntland سنة دولة وجوتشوك هاي وعندنا يدرس حاجة من فرق طويل علينا مهد الله سبحانه وتعالى عقيدة تمرد سوق أعطينا عقيدة تمرد الصوت إن شاء الله بإذن الله الكريم وعن الله كرم جاني يا سنة في سكن برارة يتشبش كرواقه وعن الله إن شاء الله بإذن الله الكريم أول واحد يجري في فيه دولة بتشر لكن هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم وعديا هو في فيه مركز دولة Puntland اسطنبول. همبليو كل أغسطس كاميرات خلف العالم مرة. qiimaha badan oo runtii aad iyo aad loo soo abaabulay oo aan dhihi karo waa kii ugu wanaagsanay oo la soo abaabulo xagga amniga, xagga waxbarashada, xagga maaragtay ishaga muxuu ahaa ishaga bay'ada ama mujtamaca aad iyo aad runtii qiimo badan tahay. waa waqti ku dhow rubuc qarni oo runtii si wanaagsan horumar dhinac walba la taaban karo ay soo haysay
soo hooyay maamul goboleedka Puntland oo runtii lagu ammaanay marka walaalayaal waxaan leedahay maaragtay insha Allah waxaan u rajaynaynaa maaragtay midnimo waxaan u rajaynaynaa horumar waxaan u rajaynaynaa meesha ay joogaan dadka si fiican inay gaaraan runtii waa maamulka kaliya ee Soomaaliya ugu horreeyay oo ka aasaasmay sidaas marka wuxuu ku noqday inuu hooyo u noqdo maamul goboleedka ama federaalka dowladda federaalka Soomaaliya marka aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina waa ku faraxsanahay waxaan leenahay hambalyo 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 xafladda oo ahayd mid si aada loo soo agaasimay ayaa ugu dambeyn waxa ay ku soo idlaatay jawi aad u qurux badan.